waxaa aad maanta noogu farxad weyn in safiirka Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya SRC-ga iyo AMISOM Force Commander taliyaha ciidamada AMISOM ee Soomaaliya la taliyaha arrimaha nabadgelyada ee safiirka Mr. Swagle iyo saraakiisha sector 6 iyo sector 2 ee AMISOM ay maanta nagu soo booqdaan Kismaayo aad bay sharaf noogu tahay. waxaan ka wada hadalay waxay ahayd koow in la qaado operation iyo sidii howlgal loo samayn lahaa gaar ahaan wadooyinka Midowga iyo Kismaayo in la isu furo iyo wadadan Kabsuumo iyo jidka howlgalkii laga gelay hore operation soo jiitamayay in hawshaas dhaqaajinteeda hadda aan ka shaqeyno iyo qodobka labaad oo ah arrinta doorashooyinka Jubbaland ka dhacaya oo aan isla sheegnay doorashada Jubbaland iyaguna ay ka hadleen inay noqoto doorasho si xalaala u dhacda oo amniya la isla sheegay Jubbaland doorashadeeda iyo amnigeeda inay Jubbaland ku filan tahay hay'adaheeda amniga wax dhibaato ka jiraan ayna lahayn wax badan oo propaganda oo aad Soomaalidu isticmaashaan wax saliiraan Soomaaliyeed ayna lahayn AMISOM iyo Jubbaland wixii hore uga dhaxeeyay waa ka dhaxeeya gacan ku haynta iyo meel cid gacanta ku haysana Jubbaland waxay gacanta ku haysay way ku haysaa electionka Jubbaland inuu yahay election u yaala Jubbaland siyaasadiisa iyo amnigiisa iyo sidoo noqon lahaa waxa laga sugayay inay tahay saan anagu ballan qaadno inuu dhacayo election xor ah fair ah aan dhibaato lahayn aad baan iyagana ugu mahadcelinayaa AMISOM ma kala maarmayno waxaan uga baahanay wixii danan marba laga soo gasha si aan walba wada shaqeyn jiray waan wada shaqeynayna ma jiro wax cusub oo anaga AMISOM aan lagu soo kordhay ama dhexdanada ka jira midna ma jiro aad baad u mahadsantihiin arrimahaasna waxaan is leeyahay si fiican baan isaga afgaranay ama ha noqoto doorashada iyo Jubbaland si u qabsanayso ama ha noqoto midda operationka iyo tallaabada la qaadi doono waad mahadsantihiin kusoo dhawo safiir. Mr. President, thank you for receiving us. I came to see President Madoobe because, as you know, I am accredited to Somalia and I'm accredited to all the regional states where we operate here in Somalia. I came to tell President Madoobe that last February, 9th February, the Peace and Security Council has adopted the AMISOM CONOPS for the year 2018-2021. We are leaving Somalia according to these CONOPS by 2021. We are supposed to draw down and hand over the security responsibilities to the Somali people. So I shared with the President what is the CONOPS about and what does CONOP mean for the state of Jubbaland. You know that we are operating here with the Sector 2, which is Kenya, and the Sector 6, which is a multinational sector. It comprises Kenya and Ethiopia. We had another third country, which is
Burundi. But because of the decisions by the Security Council, we had to take this contingent of Burundi in this so that they can draw down. You know that we have, according to the UN Security Council resolution on the AMISOM mandate, we had to withdraw this year by February 1,000 of our troops, which we did. So it is very important that the community and the people know that we are here to support and help empower the Somalis to take over the security responsibility of their country. The business of trying to throw mud on AMISOM, accusing AMISOM that they have abandoned the airport, they have handed it over to, these are rumors. The structure, the way it is organized, the sectors where they are, they will remain where they are. Whoever says other things is a lie. Don't take it seriously, because some of them are experts in lies. But I also told President Madoobe that it is the wish and the interest and profound wish of the chairperson of the African Union Commission to see the upcoming elections in Jubbaland free, fair, transparent, and most importantly also peaceful. And I offered President Madoobe the availability of AMISOM to support him in his effort. But I also told him that our mission is to empower the Somalis in all aspects. It's not to interfere, and we are not going to interfere. We are not going to interfere in the election. Those who are thinking that AMISOM is going to interfere, that's not in our mandate. But we clearly want a free, fair, and transparent election. So I was assured of these things, and I am going home happy, and I'll convey these to my chairperson. I thank you very much. I want to thank President Madoobe for his hospitality. I know we are all fasting, and we also had to fast. I wish you Ramadan Kareem, President. Thank you. And we will continue to work together. Thank you. Thank you. Thank you.